haysatay beerka ka ogiye bayhoofku gaadhiyo wixii murug ku beerqaaday waxa booga qalbiga kaaga talwad bandhigi hayne qisadaadu waa buuxadii bug laga qoraye boqorubad ku niisiyey hadduu cudur ku soo booday oy banadayin suuxdin oy hawli kugu baahday bilada akhirayd heli haddaad beegsataan samire baryada ilaahiyo ducadu baydhaydi noqod hididiyo hidiyo hididiyo hidiyo hididiyo hidi adam baanahay dhagindayna hasta damalkusi haste dooso duce ogon hididiyo hidiyo hididiyo hidiyo hididiyo hidi hididiyo hidiyo hididiyo hidiyo hididiyo hidi magan waxaan noo akhriyaa النور charity oo al walba hawshan ka shaqeynaysa khayriga ah waxaanu maanta si sharaf iyo kaliya laaba u soo dhaweynayaa oo maanta dareenkeena iyo dareenkiinaba ina siinaysa oo waqti dheer iyo meel walba inoo soo martay wasiiradeena qaaliga wasiirka shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska milgo maxamed sambaloshe oo wasiiradeena qaaliga u saxabiya saxabka u tuma ساعدة الوسير هل كان تشوكتا وحرنتي النور charity waxa la aasaasay 2012 waxay ka dhalatay dareen ku yimi hooyadan ifraax maxamed maxamuud oo iyadana ilmo sidan oo kale haysatay oo iyadoo dal joogta qurbaha haday noqoto dalka qadar iyo haday noqoto Sweden ba ogaatay iyadoo dal la ictiraafo joogta waxay dareenkooda la qaybsatay dadka degan jamhuuriyadda Soomaaliland gaasatan Soomaaliland inay la qaybsato dareenka hooyanimo iyo caruurteena ku dhasha naafada oo Ilaahay qadarkiisa ugu yimi waan ugu mahad Ilaahayna ka taasaysiyo xaruntanu waxa uu shaqaysaa dad badan waa joogan dad way seexdaan dadna waa dhayo dabada u baxan dadkan badankooda xarunta al-Nur charity baa gacanta ku haysa wasiir 200 oo caruure weeye 200 ee caruure maanta halka fadhiya 200 hooyo waxa weeyaan dadka aan awoodi karin inay isrogaan ama isqaadaan ee sida u daadsan weeye dadkii indhoolaha iyo dadkeenni kale ee naafada haarana way maqan yihiin wasiir waxaan doonaynaa nala aragtid insha Allah bidmillaahi kariim dadkan waxay u baahan yihiin kaalmo badan bay u baahan yihiin caawimo bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in masaasadan al-Nur charity foundation aad nalagala shaqayso aad wax badan nagala qabato annagana nala aragto waxaan dadkeena iyo bulshadeena aan u qabanano al-Nur charity markan kaaga sheekay kuma eega caruurtan oo kaliya waxay quudisaa qoysaskeena yaryar dan yarta agoomaha iyo dadkeena aan camalka hayn shaqooyinka hayn ayay quudisaa maalmaha ciidaha ay ka farcisaa guryahooda loogu tagaa raashin badan la siiyaa haddaan soo qato bishii Ramadaan ee dhaweyd oo kaliya 800 oo qoys ayaa raashin la siiyay dhameystiran oo qof walba gurigiisa loogu tago la garaacay dadka danyarta iyo agoomaha dad muxsiniin oo reer gadara ayaana soo dhibtay waxay u adeegtay Ramadaantii oo kaliya musaasadan al-Nur charity 1200 oo dadka dhimirka ee guryaha lagu hayo ah oo ahayn dadka xirooyinka ku jiray aqalada lagu hayo 3 iyo 2 walaalo ah ayay waxay ka farxisay oo nu la kaashanay dalada Cayn Nasteexo ay gudoomiye ka tahay Istaahil Cabdirasaaq Xuseen oo hablaha ku dhuhoobay dalada wadaadada ee 76 daladood ee fadhigeedu yahay jaamacatul Badr ayaa nagala shaqeynaysay 1200 waxay ahaayeen haween guryaha jooga oo la siinay dharkii oo dhameystiran iyo ragii oo inta kala ah ayay aad uga shaqeynaysay halka kaga may hadin waxay al-Nur charity qabataa wasiir
biyo dhaamis bay samaysaa dadkeena barakacayaasha in waxba haysan iyadoon cid waxba kaga doonayn oon tiifiyada ka muuqan oon dadka shaashada isdhigaan ahayn iyadana biyo dhaamis booyadaa u jooga gaara oo ka shaqeeya waxay alnuur charity qabataa mudane wasiir iyaduna ay ka shaqaysaa dadkeena danyarta ee qaxoontiyada ah ee barakacayaasha hadday tahay degmooyinka ay xaafadeen u kala baxaan ay tay dagaalo hadday tay noqoto hadday sancaan noqoto hadday noqoto daami iyo hadday noqoto manaaso hablood qaxoontiyadana alrada halkaa ku filqsan oo dhan aad bay ula shaqaysaa barkaday u samaysay iyo taangiya waaweyn waxay qaybiyaan taangiyadaha biyaha waxaanu qaybinaa foostooyinka 10 shirkaan qaada ee reerarkii qoysasku ay biyaha ku shuban karaan waxay qabataa kale adhi baa loo qalaa dadka oo loo qaybiyo shalay u dimaysay waxaanu qaybinay 25 neef oo dad danyara siinay iyo lacag aanu siinay dadkii danyarta sadaqada ah waxa soo noomay qabtay farax dadka ilaahay baa u soo diray waxaan doonaa wasiirada ku soo dhawaata xarunta warbixinteedii guud xaruntan kira kuma aha waa xarun ay leedahay alnuur charity oo runtii meelo badan ka kooban oo shaqaale joogo oo runtii budget badan iyo lacag badan ku baxdo waxaana ilaahay u baa soo dhiiba alnuur charity dawlad kuma tiirsana cid kale kuma tiirsana dad muxsiniina oo jooga gadar iyo dadka Yurub jooga ayay ku tiirsantahay ka soo qaaday farax oo ilaahay dartii qabiil maaha kuma jeclaanin halkan deegaankan waa gabadh meelo kale u dhalatay haddana waxay mar walba ay xooga saartay dadka danyartay qabiil u kala sheegin inay ka shaqayso waan ku soo dheeyna wasiir ku soo dhawow maamay farax xaaji maxamed maxamuud mas'uulka sare alnuur charity foundation oo ah maamada maasha Allah intanoo qof ilaahay inta ka sakaysa ka soko isku kulmisay ilaahay khayr badan ku siiyaan kulay maama anu kelmadun baan xusi lahaa awlaadan in badan baan ku soo dhex jirnay sida ay maamay farax sheegtay dawladihii kala dambeeyay anoo marar badan ku hadlaayay oo markasta goob tagaba alnuur charity foundation afkeeda aan ku hadlaayay baa waxaan la kulmaynay dawladihii dalkeena haystay ee kala dambeeyay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqeen doonaynaa halkan ka xuso sida ay noo qaabishay ay noo dhageysatay way og yihiin waalidiin badan oo ka mid ah waalidiinta ubadka haysta iyagoo ila socday inaan tagay wasaarado badan waxaan aad iyo aad halkan uga duceynayaa wasiirad milko oo maalintii koowaad ee dawladdan cusub ee dhalatay aan la kulmay si qurux badan noo soo dhaweysay qiimaysay dadkan kala hadlayay ibn aadan yihiin oo ubixii dalka inay yihiin nagu qiimaysay noona sheegtay inay wax nagala qaban doonto waqtiga aan milga la kulmay 75 sawir ah oo alban carruurta baayaa gaarka qaba ay leeyihiin baan u geeyay aad iyo aad bay u qiirootay hadal wanaagsan oo ku qanacno oo naxariis leh oo bilaadantima ku dheehan tahayna way nagu tiri waxaan daba halkan uga soo jeedinayaa dhammaan mas'uuliyiinta dawladda ganacsatada inta ilaahay wax siiyay waxaan leeyahay ku dayda wasiirad milka ku dayda oo naxariisteeda kala yeesha ubadkana ka soo qayb qaata ina maxamed iidiye intii midigta loo buuxshay dahabshiil haduu moogan yahay maganay gaarsiiya sadaqada kuwii mulkii lahaa macaluulka markarsiga inaan heli karayno maatiya jire allihii maalkiidin dhiibay baa mariyay jeebkooda milicsada miskiinkiyo intaan meel ka ahay horta waxaan ilaahay idin ka baryayaa awlaada ilaahay idin siiyay xanuunsanaysa ilaahay dambi dhaaf inuu idin ka dhigo idinkuna aad noqotaan kuwa ku samra ilaahay wixii uu siiyay waa jiirkaagi waa cadkaagi meelaad ku tuurta ma garanaysid haddana waa la ogyahay ilmihii caafimaadka qabay baaba inaan hayn karaynin sabaa ilma xanuunsanayo har iyo habeenba adiguna aad miciin u tahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro ilaahayna dambi dhaaf idinka dhigo iyagana ilaahay waxaynu uga baryaynaa caafimaad ay cagahooda ku socdaan caqligoodana isku maamulaan ifraax waxaan uga mahad celinayaa oo aan leeyahay iyadana allaha ku karaameeyo intaasoo qof intaasoo carruura isu keentay awoodda saartay sida ay wax ugu qaban lahayd wiigii horena waxay hargeysay ka tagtay wiiganna way soo noqotay waxay u soo noqonaysaana waa idinka dartiin maaha baahi ay hargeysay iyadu ka qabto maaha ifraax waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka adnaha kuugu daro ilaahay dambi dhaaf ha kaaga dhigo ilaahay ha kuugu naxariisto yooma min alayaam adigii awlaadaadaba waayo waxaad caawinaysaa wax u qabanaysaa waa carruur yaryar waa carruur yaroo baahi gaara leh waa carruur u baahan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaan uu hor istaago oo wax la qabto caawiyo anigu maadaama wasaaradii qoyska ka socdo ifraax maanta wixii ka dambeeya hadii ilaahay na gaarsiiyo inta aan xilka hayo wax waan kala qaban doonaa insha Allah
wixii aan idin qaban karaynana idinka hakran mayno insha Allah ifraaxna waxa la imaanta wixii ka dambeeya haddaan xilka hayo iyo haddaan ka tagaba aan ku garab taaganay habar yar insha Allah waa kala shaqayn doonaa waa meel walba in wax uga doonayna iyo meel kale astaynu baahida carruurteena ku asturaynana waa idinkala garab qaadanaya insha Allah idinkana ku samra qadar Allahu ma shaa facal weeyaan ilaahay qadarkiisu wuxuu ilaahay inoo qadira alxamdulillah weeyaan markastood ku samirtana waa markastoo ilaahay wax wanaagsan ku siiyo ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro dhibaata idin hayso ma fadhii karaysaan ma hayn karaysaan marka hadal badani waxba tari maaye garabkiinaan taagana insha Allah waxa weeyaan anigu waxaan idin la dareenahay inaan ahay hooyo haysato ilmo baaralaysa dareenkan anigu idin muujinaya waxay tahay inaan maanta dareen idinkula ahaado inaan gabay idin tiriyo oo gabaygaana igu kaliftay inaan sameeyo hoodo maxamuud iidaan oo tiri ka soo gabay caruurtan maadaamood ilmo haysato caruurta la mida adaa dareenkoodii la dareena markaa gabaygaa sababtiisa waxaa lahayd horta hoodo ilaahay ka jasaaysiiyo gabaygaan bilaabayna insha Allah bismillaahi kariim hooyadii bukaan haysatay beerka ka ogiye bay hoof ku gaadhiyo wixii murug ku beerqaaday waxa booga qalbiga kaaga talwad bandhigi hayne qisadaadu waa buuxadii bug laga qoraye boqor ubad ku niisiyey hadduu cudur ku soo booday oy banadayin suuxdin oy hawli kugu baahday bilada akhirayd heli haddaad beegsataan samire baryada ilaahiyo ducadu baydhaydin noqod banaadhiyo nimcadan haysaniyo laxadkano buuxa bini aadan bayno marbaynba ay nidhahnaaye baldayay kuwaan caafimaad arkin bidhantiisa baaralaysbariyo aan lahayn xoola lagu banto oo bacad ka jiifiyo baldaya bodhka iyo difta baldayay agoon baahan oy bugta u sii dheertay waxaa bina la taagiyo waxaa boodhadh lagu teedshay balabalay ka jiifaan iyagu meel habaas badane barhkood jiingaday degan yihiin buulal cooshadahe baanadool waxgooyiyo barbaan haysan beesadae baahiyaha isdhinac yaalla een cidi u baaqaynin buda wiilasha ooyaye baana heli waayey naafada bukaanka intuu madhanyay beerkoodu uu bogoodu gaajaysan yahay biciidinka dheere waa bukaan midkii baanan la badhaya jeebkiiye bal yaa talow barbaarta u maqaanbelay laxadkood mahadda ilaahay kadib waxaynu u mahad celinaynaa wasiiradeenna oo runtii annaga maanta naga farxisay oo aanu jecel lahay inay hawlo badan naga garab istaagi doonto waxaanu rajaynaynaa maadaamay nala dareen tahay hooyo tahay inayna dareemi doonto runtii aad baan u rajaynaynaa waa dawlad cusub waxaanu ka sugaynaa insha Allah biidnillaahi tacaala garab istaag baanu ka sugaynaa hooda iyo saygeeda iyo maama ifraax aad iyo aad iyo aad bay mahadsan yihiin mahadooda lama soo koobi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadee wuxuun baynu maaragtay ugu ducaynaynaa inuu janno abaalkooda ka dhigo waxaan leenahay dawladdan cusub dawladdii hore in badan baanu daba soconnay wax maaragtay garab istaaga kamaanaan helin runtii waxaan leenahay dawladdan cusub dhammaanteed oo wasiiradaasi maanta markhaati nooga tahay war waalidkaa waa arkaysaane waa ubixii dalka waa hooyooyinkii waa runtii bulshada halkii haldoorkeedii weeye waalidka ah la soo garab istaago waalidkaasi waxay ku jiraan 70% waa kiroolayaal qaarkood waxay degan yihiin meelo bannaan oo aanay lahayn iyagu barakac bay waddanka ku yihiin xaqiiqatan barakac bay waddanka ku yihiin hoodaa ka markhaatiya maalin walba hooyo buuldaad ugu galay ayay hooda ka dul ooydaa hoodo ooymaysa iyo cabdifataax iyo maama ifraax oo hinta halala qaybsado oo dadkan waa dadkiinniye waa jiirhkiinniye war dawladda waa la doortay oo dadkaasaa u codeeyo waa la soo saaray ha la soo garab istaago in badan baanu dawladdaanu nidhi wax naga raseeyey maanaan arag
waxaanu leenahay dawladdu hana soo garab istaagto waxaan idin sheegayaa caruurahan duruufo fara badan bay leeyihiin bulshooyinteeda Soomaaliyeedna kama hela garab aan ahayn maxaan ku raadayay inta imika aanu la joognaa goobtan isugu kaaya keentay marka aad waxaan u doonayaa in bulshooyintu iskaga soo garab taagto caruurahan baahiyahooda la eego caruura waxa jira aan meel lagu hayaba lahayn caruura waxa jira saddex waxa jira qaar laba aanu hooyo laba haysataan labana saa kaga dhinteen marka waxaan idin sheegayaa bulshooyinteeda Soomaaliyeed qurba joog iyo dawlad iyo dad walba in hoos naloo eego oo nala arko waxa jira caruura habeen iyo maalin suuxa oo dawada girirka wax ka caawiyo helin waxa jira caruura la'aba wax maxaan kugu raadayay meel yar oo lagu hayo aan loo haynin marka waxaan aad bulshooyinteeda uga codsanayaa inay maxaan kugu raadayay isgarab istaag qaaliya noo sameeyaan oo iskaga soo garab taagan oo sida lamaanaha indhaal noo dareemayaan ayaguna noo dareemaan ayaan ka codsanay